أيوة عبد حسن كنا نول مجالات بالصورة وحرمان مركب ورئيسين أنا هالكن وجمع هالنقطة نواحي تي في أو لو صورة الجلية برنامج كان مانتا قبنا يان ترى جرانت الصومالية اللي بعتسن وحرمان فريق وكمان كنا لحظة كهلا لقطنا كهلا في الصومالية ميلكست أي شغان وحكا عطسنا لها أو سن حريص لو عطسنا لها إن أي ولا لو بعتسن أبارو حيان إن أي وقرجان إن وقتران ميلكست أي شغان أي مسكوريان كنا سبقيستان سي dadka dhibaataysan wax loo taro si bila aadanimo ku jirto qof Soomaali oo dhibaataysan in la taro wax aad u weyn waxaan ka codsanayaa Soomaalida meel kasta ay joogaan inay xilliga loo baahnaa ay tahay in la caawiyo dadka Soomaaliyeed waxna iska ururiyaan si bila aadanimo ku jirtana Assalamu alaikum. My name is Sana Hussain. I'm a student here in Minnesota and someone who volunteers for the community. I really wanted to urge all of the young people in the diaspora, especially in Minnesota, to organize themselves in ways that could raise awareness about the issue in Somalia, as well as raising funds. I know a lot of times as young people we're doubtful of whether or not the money we raise will actually go to Somalia. But I want us to place our trust in Ilahi and to be sincere in the efforts and truly create ways so that way we could fundraise for those back home. And I just want us to know that Ilahi, chooses who he guides and who he doesn't, and in that same sense, unless we change our condition, the condition in Somalia won't change. So let us be proactive and raise awareness about this devastating situation back home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dhammaan muslimiinta Soomaalida oo la haya meel kasta oo joogan waa salaamaya dhibaatada Ilaahay ka dulqaado dagaaladana Ilaahay ka qaada leeyahay walaalayaal videogan macnihiisu waxa waaye message aan u diraayo dadka Soomaalida meel kasta oo joogan waliba inta wax haysata inta dhaqaalaha leh inta ka badbaaday dhibaatadii 20 sano ka socotay muxuu ahaayay oo joogto dhulka barwaaqada oo shaqada haysta oo waxbarashada haysta walaalayaal maanta saa la socotaan dhibaatooyin badan oo masiibo ah oo record adduunka jabiyay oo lafdhabar u tahay dagaal sokeeye oo misna ugu sii darsantay drought ama abaar wax loo yaqaano ayaa maanta kumaankum Soomaaliya oo caalamka kumaankum Soomaaliya oo Soomaaliya ka soo qaxay wadanka gudihiisa iyo wadamada xuduudka la leh Ethiopia, Kenya iyo Djibouti ku safar gareynayaan caalamka gaariyo muslimba waa qaylisay war inima dhinama u marinaya newska waa fiirsataan marka waxa u baahnahay walaalayaal inaan dhibtan ka jawaabno oo sida ugu dhaqsaha badan oo dadkeeni ku caawino cidina uma maqna ceelno uma qonna inaga kaliya ayaa Ilaahay sabab inuu ka dhigi karaa inay caawiyaan walaalayaal marka please hala caawiyo ololaha meel kasta ayuu ka socdaa dhalinyaro arday ayaa wado wadaadada ayaa wado shacabka caadiga ayaa wado wuxuu ka socdaa masaajida wuxuu ka socdaa moolasha wuxuu ka socdaa makhaayadaha waxa sanduuqyada meel kasta yaaliin walaalayaal maanta cidna uma maqna gaaladii baa qaylisay Yurub meel kasta ay joogaan marka dadkaas walaalayaal hala caawiyo and please let's come forward and help those people in need. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aniga Cabdixakiin wa salaamaya walaalihii muslimiinta oo Soomaaliyeed oo meel walba ha joogaan markay arkaan maqalka iyo muuqaalkan isku jaangoon fariinta aan haatan hadda aan xabaarsana waxa weey waxaan wada joognaa waa 2 maalmood nimo shalay aragtay maanta ma arkays ujeedadeedu waxa ay tahay haddii Ilaahay ku runyaa dhibta haysto ummadeena 20 sano ee la soo dhaafay waxaana dhibta tan taabanaya waa maatadii iyo caruurtii iyo dad aan waxba galabsanin nin walbana waxa uu geysto leeyahay marka aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed walaalihii muslimiinta adigu qodad qabiil ah u fiirneen hay'adahan dadka taakuleeya oo u aruuriya sadaqada inaad garab siisaan waana wax idin fiican midda xigto dadkaas oo dhibta maanta haysto iyo adinka iyo annaga iyo aniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u simannahay waa imtixaan maaha wax ay kaliya u gaara
ilaahay waxba ayagu uma weyn laakiin waa wax annagana lagu imtixaamayo lagu ogaanayo garashadeenna iyo caqligeenna iyo iimaankeenna muggiisa inta uu dhan yahay waxaan leeyahay hay-adahaas dadka taakuleeya yaan la hor istaagin qof walbana wuxuu geysto baa liibaanta aakhiro maalin maanta aan ahayn ay miisaankiisa u koraysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا المقعية وحليلها عبدي رجحن waxaan doonayaa inaan encourage gareeyo ama u sheego dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha iyo dadka dacladiisaba ma qarsoona dhibaatada waddankeena ka dhacday waa dhibaato aad u weyn oo kasbatay dad fara badan noloshooda dadkaas oo badan caruur iyo waayeel iyo dumar dadka waxa laga codsanayaa meel walba joogaan inay organizationka sida Amoud organization iyo araha iyo ama UNHCR to kale ay donation siiyaan si dadka loo badbaadiyo maanta wixii dadka ku dhacay bari waa nagu dhici karaan waana wada simanahay waxaan ka codsanaynaa inaad donate gareysaan please donate thank you so much assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu Ahmed waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo xogaa messenger oo u jeedinayo dadka muslimiinta Soomaalida especially ku nool adduunka dacaladiisa فيديو هذا وحياة هذا كسان ولا هذا كسان وحاكو قرن عيال الصوماليات دمر رج عيال وهذا الصومالي والذين حين ودي من أيام جاجو on بريلان أولاد إيو إن كستوحنا بلادن كا إلهي أي كمان قلا حار باينا نفسه ذاتك especially دي بدأ كنول إن ولا ريال أفيرستان هذه هذا نقول بقتان سوكذا ولا الذي حنجبنا مرة ما أنت فرصة إن والله إلهي ما قدرته وحن وايد حان إذن أنا كفاية ذكر مالك يوم من القيامة ضد بقول ودرتد قوس أو تطبق في كوبان بقول دور داودر هذا حل بالبادي كرتا الحمد لله وحنا سنة الرو سيد عمود وكل عمود فاونديشن وقبلهم مريض كل مريض فنريسنا سمينا هي مساجدك يا لهذا المجال من يابرز تونسي رسولن أول تجان فنريسنا الله سمي والله بالله ونقول أرتي فرصة وقت المانت هم كسوم يردون مركب بقول دور مانت تطبق بلان هتكون بالبادس آخر حلقة بين النار كافر قادو كولا ولا وإذا يكون كرتا أبها يكون كرتا نذاك يكون كرتا برابلي واحد من فقرابة سومالنا قرابة واحد مركز قرابة كي ولا الله مسلمين واحد كولا ليال وبجدان حرس غيرنا ما وحوا ما ماركينو ريانا ما وحن real is a real event that is happening back home so please and please and please donate to Amoud fundraising or any other organization that are acceptable and thank you.